bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka qodobada ku jiraan idinkugu soo gudbin doonana daawadayaal waxaa ka mid noqonaya maxay tahay tallaabada ay qaaday xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ee farmaajo uu ku amaanay halkan ayaa daawadayaal idinkugu soo gudbin doona qodobada kale aad daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid noqonaya dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay qorshaha ka dambeeya kulankii ay qaateen ra'iisul wasaare Roble iyo safiirka Imaaraadka qodobada kale aan ku soo qaadan doonana daawadayaal barnaamijkeena waxaa ka mid noqonaya xiisadii degmada Buulo-Burde ee gobolka Hiiraan oo ka sii dartay kadib xeelad uu sameeyay maamulka haddaba maxay tahay xeeladaasi waan soo qaadan doonaa daawadayaal qodobada kale aan ku soo qaadan doonana barnaamijkeena daawadayaal waxaa ka mid noqonaya weerar lagu dilay dad hor leh oo ka dhacay dalka Itoobiya wararkii ugu dambeeyay ee doorashada dalka Itoobiyana daawadayaal waan soo qaadan doonaa qodobadaas ayaa faahfaahin doonaa daawadayaal balse markuu ugu horeyso daawada intaanan faahfaahinta guda gelin haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saaro oo fura gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino like saar muuqaalkan si uu saaxiibo fara badan u gaaro qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada nagu wadaag markaana daawada ku soo dhawo qodobadii durmarkaa soo daawatay oo intaasi kasii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya iyo maamulaha shirkadii dalka Itoobiya u dhoofisay kalluunka kadib markii uu dhacay heshiis ay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya isku dhaafsanayaan kalluunka iyo qaadka Farmaajo waxa uu soo dhaweeyay heshiiskaasi isagoo xukuumadda ku amaanay waxa uu ugu yeeray awoodsiinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyo heer gobol ah oo loo iibgeeyo wax soo saarka dalkeena ee kor u qaadayso dhaqaalaha dalka fursadaha shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo heer nololeed ee shacabkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee muddaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyay awoodsiinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyo heer gobol ah oo loo iibgeeyo wax soo saarka dalkeena ee kor u qaadayso dhaqaalaha dalka fursadaha shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo heer nololeed shacabkeena madaxweynaha oo warbixin ka dhageystay wasaaradaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame gaadiidka iyo duulista hawada mudane Duraan Axmed Farax ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in ganacsiga kala dhaxeeya dalkeena dalalka diriska uu ku saleysan yahay isu dheelitirnaan iyo wax wada qabsi iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed ay helayaan dheef dhaqaale oo u dhiganta tan dhigooda badeecadaha keensada dalka maamulaha shirkadda dhoofisay kalluunka loo iibgeeyay Itoobiya ee qaybta ka ah isdhaafsiga dhaqaale ee labada dal mudane Maxamed Ibraahim Cali Cajiib oo kulanka ka qayb galay ayaa uga mahad celiyay madaxda dalka mudnaanta ay siinayaan xal u helista caqabadaha ku xeeran ganacsatada Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso suuq geynta heer gobol iyo jaangoynta fursadaha wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane Duraan Axmed Farax ayaa sheegay in fursadaha iskaashiga ganacsi ee dalalka diriska ah ay barbar socdaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha isu dheelitirka ganacsiga aan la wadaagna dalalka diriska iyo xoojinta wax soo saarka taas oo suurtagelinaysa in dalagyada iyo wax soo saarka dalka ay ka muuqdaan suuqyada dalalka gobolka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay suuqa ganacsi ee u soo kordhay kalluumaysatada Soomaaliyeed waxa uu xaqiijiyay in la joogo waqtigii aynu kula tartami lahayn dalalka gobolka wax soo saarka gudaha dalkeena geesta kalena daawadayaal haddaynu eegno wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa ka hadlay ujeedka ugu muhiimsan ee kulankii dhawaan Muqdisho ku dhexmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan wasiirka oo ka qayb galaya barnaamijka one on one ee telefishinka Turkiga ee TRT isagoo ku sugan magaalada Antalya ayaa xaqiijiyay in kulankii u dambeeyay Roble la yeeshay danjiraha Imaaraadka Carabta oo qayb ka ahaa dadaalada maamulka waqtiga ka dhacay Farmaajo ku saxayo gafafka diblomaasiyadeed ee uu sameeyay intii uu xilka hayay wasiir Cabdirasaaq ayaa sheegay in dowladdiisa ay aad u xiisaynayso inay dib u saxdo waxyaabihii hore uga soo qaldamay ee ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo dalalka kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa 7 Juun xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Imaaraadka Carabta waxaana war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu sheegay in kulankaasi looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo khuseeya labada dal xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka Carabta ayaa xumaa 3 sano ee la soo dhaafay iyadoo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya u jartay Imaaraadka
kadib khilaafkii dowladaha khaliijka. Soomaaliya ayaa sheegtay inay mowqifka dhexdhexaadnimo ka qaadatay bartamihii bishii Abriil ee sanadkii 2018. Soomaaliya iyo Imaaraadka waxay joojiyeen iskaashiga military tan iyo 2014. Imaaraadka Carabta wuxuu tababaray oo mushaar siinaya asgar Soomaali oo Muqdisho joogta, wuxuuna Puntland ka dhisay ciidan burcad badeedka la dagaalama. boqolaal hub ayaa laga bilaaqaystay xarunta tababarka ee Muqdisho markii la xareeyay. tani waxay timid kadib markii ciidanka ammaanka ee Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ku dhawaad 10 milyan oo Imaaraadku diyaarada ku keenay si loo siiyo asgarta, waxaana muddo gaaban la xayiray diyaaradii lacagtaasi keentay. Imaaraadku wuxuu kala xiray isbitaal bixin jiray adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah. dhinaca kale daawadayaal haddaynu eegno xiisada dagaal ee maalmihii u dambeysay ka taagneed degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa ka sii dartay kadib markii uu maamulka degmada ee gobolka Hiiraan uu xeelad ugu soo gacan dhigay ragga ka tirsan maleeshiyad beeleeda uu dagaal kala dhaxeeyo ciidamada ammaanka. sida ay sheegeen qaar ka mid ah odayaasha degmada Buulaburde, waxa uu maamulka gobolkaasi kula kacay khiyaano weyn kadib markii uu ka dalbaday in loo yeero raggii dhawaan weerarka ka fuliyay saldhigga booliiska degmada si looga wada xaajoodo arrintaasi. odayaasha oo raacay soo jeedinta maamulka ayaa u yeeray tobaniyo ka mid ah maleeshiyadka si xiisada xalkama dambaysa looga gaaro, kuwaasi oo markii ay kulan xaraadina ugu yeereen isla markiiba xabsiga loo taxaabay. wararka ayaa sheegay in 14 ka mid ah raggii weeraray saldhigga la xiray kadib markii kulan xaraadina loogu yeeray, iyadoo oo taasi ay ka caroodeen qaar ka mid ah maleeshiyadka ay sayeen ciidamada. waxay ugu baaqeen madaxda dawladda iyo dawlad goboleedka Hirshabelle inay xiisadana soo farageliyaan si uusan dhibka intaasi uga sii badan, ayagoona mas'uuliyadda waxay dhacdusha u saaray maamulka degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. xiisada ka taagan degmada ayaa sii xogeysatay, taasi oo u dhaxaysay ciidamada ammaanka iyo maleeshiyadka deegaanka kadib markii ay shalay Buulaburde gaareen saraakiil sare oo ka tirsan maxkamadda ciidamada. wararka ayaa intaasi ku sii darayay in qorshaha uu yahay in la maxkamadeeyo ragga xiran oo markii hore lagu soo qabtay xeelada uu maamulka degmada uga ballan baxay ee odayaasha. geesta kalena daawadayaal haddaynu ogno wararka ka imaanaya caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa ayaa sheegaya in weerar sababay dhimashada 9 qof uu ka dhacay degmada Meta oo Wolkate oo 100 kiiloomitir u jirta caasimadda dalkaasi. weerarka oo ka dhacay dhismaha buundada degmada Meta ayaa yimid kadib markii kooxda fulisay ay ku amreen shaqaalaha inay joojiyaan dhismaha buundada, taasi oo ay iska dhagatiraan sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelka dhabanayaasha. dadka la dilay oo u badnaa shaqaalihii ee ku hoolanaa dhismaha buundada ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa nin la sheegay inuu cabitaan bunka ah ku iibinayay wadada hareeraheeda. faahfaahin intaasi ka badan weli lagama helin weerarkan, hase yeeshee waxa uu qayb ka noqonayaa qalalaasaha amni darro ee ka jira Itoobiya tan iyo markii uu bilowday dagaalka qowmiyadda. dhacdadan ayaa saraakiisha qaar ay sheegeen inaysan wax saameyn ku yeelan doonin doorashada dalkaasi oo maanta loo dareeray, maadaama ay soo tarayso walaac dhanka ammaanka. welina daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka ee channelka Nuxurka Wararka aan kulana YouTube-ka. bal mar kale aan ku xasuusiyo in channelkeena subscribe saarato aad furata gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawade muuqaalkan noo la garay si uu saaxiibo fara badan u gaaro. markaana daawade ku soo dhawo qodob kale oo kamid ah qodobadii oo dhacan idinkugu soo gudbina faahfaahintiisa. waxaa saakay dadweynaha reer Itoobiya u dareereen goobaha codbixinta doorashooyinka si ay codkooda u dhiibtaan. doorashadan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa ay ka dhacaysaa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay ugu horeysa caasimadda dalkaasi Itoobiya ee Addis Ababa. dadweynaha ayaa dooran doona ilaa 547 xildhibaan oo heer federaal ah sida uu shaaciyay guddiga maamulaya doorashadaasi. wararka ayaa sheegaya in goobaha qaar ee codbixinta la furay xilli aan ahayn waqtiga la cayimay, waxaana jira dib u dhac ilaa 30 daqiiqo ah. tusaale ahaan magaalada Addis Ababa 15 deegaan doorasho, 11 ka mid ah goobihii codka laga dhiiban lahaa iyo 2 goob codbixin oo ku yaala Bahir Dar oo dib uga dhaceen xilliga la furi lahaa. sidoo kale waxaa goobaha codbixinta ku sugan madaxda doorashada iyo sidoo kale murashaxiinta wakiiladooda si ay dusha uga socdaan qaabka ay u dhacayso doorashada. doorashada ayaa mid isha lagu wada hayo guud ahaan Itoobiya marka laga reebo dowlad deegaanka Soomaalida gobolka Tigray oo aysan ka dhicin doorashada. si kastaba ha ahaatee qorshaha doorashadan ayaa ahaa inay dhacdo sanadkii hore, balse waxaa loo baajiyay sababo la xiriira cudurka safmarka ay COVID-19 oo saameyn ballaaran ku yeeshay waddanka Itoobiya.
guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijka falaqaynta wararka ee channelka bal haddii aad daawatay muuqaalkan la garay oo la wadaag asxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saaro oo fura gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino qaybta hoose ee faalida lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag daawade tan iyo barnaamijkan kiisa kalena inta dib isugu kulmi doono sidaas nabadgelyo.